kulanti wacan daawadayaal ku soo dhawaada fadhi cusub oo kamid ah gorfeynta RTN oo si toos ah idinkaga imaanaysa xarunta dhexe ee magaalada Nairobi magacaygu waa Cabdilcasiis Barrow. dowladda Soomaaliya dhawaan lacag gaaraysa 80 milyan ayaa waxay ka heshay bangiga adduunka. Arrintaasi waxay noqotay mid si weyn bulshada Soomaaliyeed ay u hadalhayaan. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa kamid ah dadka ka hadlay arrintaasi waxaana uu si weyn ugu mahad celiyay hay'adda lacagta dunida IMF iyo sidoo kale bangiga adduunka waxaana uu sheegay in arrintan ay sameeyeen ay didiilo hor la sii gali doonto isla markaana ay unki doonaan hindisii shacabka Soomaaliyeed ee muddo dheer ka naawilayeen dowladda Soomaaliya inay hirgeliso. sheekadan waxaa si weyn u falanqeynaya bulshada Soomaalida oo hadba xagla kala duwan ka eegayay. barnaamijka gorfeynta waxayna ku eegi doonaa 28 sano kadib bangiga adduunka markii ugu horeysay oo lacag u ogolaada Soomaaliya oo gaaraysa 80 milyan. ma waxa ay ku timid dadaalka dowladda Soomaaliya ee muujisay oo ku aadan taabagelida dowladnimada dalka mise bangiga adduunka ayaa imika si gooni ah u naawilaya Soomaaliya inuu kala shaqeeyo arrimaha la xiriirta horumarinta iyo kobcinta dhaqaalaha xilli Soomaaliya oo ay dambe dhaqaalihiisa oo ahaa mid iskabaya balse lacagtiisa aan si waafiya guud ahaanba uga shaqeyn Soomaaliya. arrintaasi waxaa gundhigu ah siyaasada isdiidan oo iska soo horjeeda iyo waliba maamulada Soomaaliya oo qaarkood isdiidan. Somaliland gooni ay u baxday waxaana ay sheegtay in Soomaaliyada kale ay ka madax banaan tahay oo ay tahay jamhuuriyad iskeed isku magacawday. halka dhinaca kale ay iyaga qudooda siyaasadii iskaga soo horjeedaan walow al-shabaabna dowladda dhexe ay dagaal kala soo horjeedo oo gabi ahaanteed badiidan dowladnimada iyo xuduudaha Soomaaliya. haddaba barnaamijka waxaanu ku falanqeyn doonaa arrimahaasi ku aadan Soomaaliya horumarada ay sameynayso iyo dhaliilaha ay yeelan karto intaba. waxa ay la falanqeynaya Cabdiraxmaan Nuur Cali oo loo yaqaan si naxariis leh oo ah qoraa arrimaha siyaasadana falanqeeya iyo waliba Maxamed Cabdirasaaq Cabdullaahi oo isaga ah nin ka faallooda arrimaha siyaasadda Soomaaliya geeska bari sidoo kalena bartay xiriirka caalamiga iyo diblomaasiyadda. aad baan u jecelahay RTN iyo barnaamijka gorfeynteena nagu soo dhaweeyay dhamaantiin. Cabdiraxmaan adiga ayaan kugu hormaraya bangiga adduunka dhawaan Soomaaliya lacag buu gaarsiiyay 80 milyan loo ogolaaday inay Soomaaliya gaarto. arrimo kala duwan baa soo baxaya dowladda Soomaaliya mas'uuliyiin hadda waxay sheegeen lacagtan inay deyn ahayn. warbaahinta qaarna waxay qortay lacagtan inay tahay markii ugu horeysay 28 sano kadib Soomaaliya loo ogolaaday inay deyn ka qaadato bangiga adduunka. bal markaad eegto xaaladda dhaqaale waaqiciga siyaasi iyo guud ahaan Soomaaliya meesha maanta taagan tahay waxaad ku sifayn lahayd. bismillaahir rahmaanir rahiim wasalaatu wasalaamu ala rasuulillah. ilaahay subhanahu wa ta'ala horta runtaana waafajiyo run sheeg ayb sheeg waa la yiraahdaa. Soomaaliya waxa caado u ahayd in 28 sano ma ahan horta markii ugu horeysay in bangiga adduunka uu lacag ku deeqo Soomaaliya. qodobka koowaad markastaba waxay ahayd in la bixin jiray deeqaha caalamka ay sheegan jireen lana siin jiray international ahaan markii la dhaho Soomaaliya sidaan wada ogsoonahay dawladda Sheekh Shariif kadib Xasan Sheekh Maxamuud waxa bilaabatay in la aqoonsado aqoonsiga la aqoonsanayana Soomaali rabitaan iyo baahi loo qabo laguma aqoonsanin siyaasadeed oo beesha caalamka ka jirta la rabo in la helo dawladda la xajoodo hantida taalana loo dhaco lana helo darteed baa horta loo aqoonsaday. waayo waxa si dhacay mandate-ka awalka hore uu Mareykanku ku haystay taasoo ahayd in uu asaga markaasi si haysto mandate-ka haduu ka dhacna haduu rabo inuu cusboonaysiistana dad transitional government ah heshiis lama geli karo taasoo ah dawlad ku meel gaar ah heshiis lama ansixin karto internationalka ama reer galbeedka. saas darteed horta waxa noo la ansixiyay waa baahi annaga nalaga baahday iyo wax annaga noo la baahan yahay. rabitaan iyo bisayl siyaasadeed nalaga arkay oo annaga noo la aqbalay horta ma jirto. markii laga soo gudbo taasna Soomaaliya Sheekh Shariif dawladdiisa wixii ka dambeysay Xasan Sheekh Maxamuud waxay bilaabaneysay si ay ayaga heer caalamiyan ula shaqeeyaan beesha caalamka institutionna ay soo dhisaan rabitaanka beesha caalamka lagu shaqeeyo. gartay taas mar walba way taagneed oo way jirtay. Xasan Sheekh Maxamuud uu ka soo shaqeeyay federaalkan ma ahayn rabitaan Soomaali ka imaaday waxay ahayd rabitaan reer galbeed uu ka yimid waa la qaatay iyadoona shacabkii loo aftigelin.
وطهي هذا مركز تماذا الصومالي ماشي شفت مركز محاد بكان مركز iyo lacagtan 80 milyan oo bangiga adduunka Soomaaliya siiyay oo wajiga kala duwan ay sheegayaan inay tahay deyn wajiga kalena uu leeyahay Soomaaliya deyn ma qaadan marka soo keenta marka waaqica siyaasadeed maanta taagana dul saarto Soomaaliya nooceeba ku soo baxaysa boogta kugu taala marka shabtid ina ogaatid waxa ay tahay waxa fiican waxa ka soo dhaliyay boogta maqaarkaasi ina dib u eegto hay marka waxaan rabaa xusuus yar inaan inta dib ugu laabto kadib pointigaaga kugu imaado xasan sheekh maxamuud wixii uu ka soo shaqeeyay systemkii iyo federaalkii uu asaga sameeyay asagoo markaas dhahaya ama madaxweyne kasta ee wadankan Soomaaliya u yimaada kuma shaqeeyo rabitaanka shacabka xaqiiqada marka la isku sheego hay wuxuu ugu shaqeeyaa si beesha caalamka rabitaankooda ah inuu ku shaqeeyo si hadhow iyaga ay u raadiyaan in ay soo noqoto midnimadii Soomaaliyeed yaa ka shaqeynay madaxweyne kasta wadanka yimaada hay ama farmaajo ha noqdo ama wax kasta ha noqdo markii waxaan kan iyo muusigan laga qaado oo maxal yiraahdaa nabad iyo nolol markii laga qaado waxaan ka caadiga taagan ah xaqiiqdu markaan isku sheegno qofka xaqiiqdu marka u sheegtay wuxuu ku leeyahay mobilkii baa ka go'ay ma mucaarad baa noqotay masaas baa noqotay qofkaagana waa wanaagsan tahay inaad xaqiiqdu u tilmaanto marka internationalka markii ay wax ku bixinayaan waxay wax ku bixiyaan ayaga system dawladeed iyo dad markaasi ay magaca kor uga lumiyaan aan u soo dhaco marka lacagtan way jirtaa isbedel siyaasadeed sida wasaaradaha kale dawladdan waxa kaliya lagu amaani karo waxay tahay institutionadii wadanka waxa la rabaa wadan markuu wadan yahay saddex shay haduusan horumarin ka sameyn wadan ma noqon karo hay waa inuu security-ga ka shaqeeyaa oo amniga ah waa inuu development-ga horumarka ka shaqeeyaa iyo institution-ka xeerka wadankaasi u yahay marka waxa leedahay saddexdaas baa maanta horumar laga gaaray oo suuragal tahay in si caalami loo macaamilo Soomaaliya maya saddexdaba horumar lagama gaarin labo maxaa la yiraahdaa bay isku dayeen midna waa lagu fashilmay security waa lagu fashilmay oo wax Muqdisho maanta ka dhacay waad arkaysaa waxa ka dhacaya waxaanan weli ka dhicin aan ku soo laabto dood waxaan jecelahay saaxiibkeen Maxamed Cabdirasaaq Cabdullaahi inaan qayb ka siiyo Cabdullaahi doodda saaxiibkeen wad u jeeday iyo maanta xaaladda Soomaaliya sida ay tahay si guud markaad u eegto bangiga adduunka lacagtan uu Soomaaliya u soo furay dhaqaalihii Soomaaliya meesha uu taagan yahay dadaalada iyo shuruudaha la sheegay inay buuxiso wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliya wajhi nooceeba maanta noo bidhaamay Soomaali aanu tilmaami karno qaabkee ah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أرتينا ما سنتين مانتي أنا مرتقي لسان. هرتا IMF يا وال بنك عابون إلى فهم أمر كوريس. IMF يا وال بنك وحي العقد ديمية تكور ديميين أرجنتينا. وحاق العقد ديميين ودليل هذا غريق. مرك IMF مرك الفرال الجديد كفيرس حكوف الضان. صابته كنت بقضية. 1976 إلى 1980 دين وحال أقول لها أرجنتينا $3 بليون هي ودك وحايزتي ميليتري ميليتري وحاكلا وريجي دولة الشعب 1980 إلى 1983 دول حيث وكلية وحال أقول يا شرع كله إلى 200 بليون ما يكوي ما تمرك لعب على الوسينة يا بركور لعب الوسينة عليه وعلق أنا هندين وهذا قارئ لو عاوني لعت الوسين العق معهن واحتر لما لها فيري دول صوماليا وحلاد أقل هوس أقل صار وما أقل دبا أقول جرت وزيارة عن شقين البجران وزيارة عبد الشهر مكشخ يسا بيدبو مكشخ يسا جبلان مكشخ يسا قلب مكشخ يسا سويدي بلدان مكشخ يسا متسكودي هذا وهمايا سو وزيارة لهن لسميه شغل بحيطه وزير بانهاي وزارة بانهايا من تيكره وزارة دي حبنت كلها هاي جبلان أما بدنا متيكره سو مركز حدير ده وزارة حبشة حالسي $6 مليون ما يبغى بنيسا شرطاس حاجة نيسا وهي أرض الجوجو جبلان أما أرض الجوجو بلدان حدود كفة إيدين العقدس حقيقي ليس مركز سو $6 مليون بالسي أو دولار محاي كوسعتا $6 مليون وحافورس الربو رباس ده بحين ويسيت وحاجة واحدة ديفولت يعني إيه بحين ويدها إمات والوسيلة تمستو فوريس لعقد اللي يقول لي هاي أرجنتينا حتى أنت أجنّا وعمرها لو بقول $40 بليون ومركز هو $2 بليون كبلاوات هذا أنا هذا محسوقاته كنت بليون مدام
shacabkii way kaceen way diideen sababta dhaqaalihi baa go-ayo waddanka dil buu gelaya 40 bilyan xagee la geenaya marka kuna bixinaysaa 2003 ilaa 2004 waxaa hayay nin yidhaahdo Nastro Krishna lacagtii ay ku lahaayeen intaas uu bixiyey shilin kuma lahaanin laakiin from 2007 ilaa 2015 waxaa la wareegtay xaaskiisa oo haddana gelisay waddanka deenta lacag kan hadda qabtayna deen ma soo qaatay marka tusaale turkiga maxaa lagu weeraray lacagtiisa leerada hoos loogu dhigay sababtoo ah deynta IMF uu bixiyey shilin kuma lahaan inuu deen qaatana wuu diiday ifan soo marka Soomaaliya kow lacag ma haysato labo shacabka Soomaaliya lacag ma haystaan shacabka Soomaaliya waxay ku shaqtaa waa hawo lacagtii xarig karasiga lacagtii adkeed ee gacanta qaban lahaa waxaa gacanta ku shirkado khasaasyada lacagta waa la qaada waxaa la geeyaa wadamo kale la geeyaa oo maalgeliya lacagtii waddanka shaqaynaysa dawladda gacanta kuma hayso maalka $800 milyan la siiyey xagee geynaysaa waan ku bixin mishaar Soma taas oo ku labo maalin kadib €100 milyan baa la ballan qaadana oo ballan qaaday European Union in Soomaaliya siiso €100 milyan oo gaar ah $60 milyan oo gaar ah xagee ay marka fiiri dawladda miyaan ku dhacaynay Soomaaliya dawladda ha qabato ha ku dhacdo isticmaalka lacagta la fiiriyaa lacagta ay gelaysaa kow tagada ma dhisi kartaa dareen ma dhisi kartaa shaqo ma abuur kartaa wasaaradda ma dhisi kartaa waa may waddanka hadduu ka dhinto 3 shay oo kala ah waxbarashada caafimaadka iyo dadka macnaha xagga ammaanka wax soo saarka ammaanka ku dhinto horumar ma lahan watahay waa ku soo laaban doonaa maxamed markaad eegto dooda ku aadan saaxiibkan meesha keenay ee wasaaradaha qaar budgetka maaliyadeed la siinay ee haddana aan awood u lahayn in adeegii loo diray ay si guud u qabtaan oo qaarkood soo hadal qaaday ma isleedahay dawladda Soomaaliya ee maanta jirta way mudnayd inaad ka fiirsato markaad eegto hadalka saaxiibka horta waxaa wanaagsan qofka meesha loo soo dooranayo inuu noqdo mid ka fikraya aayaha iyo mustaqbalka Soomaaliyeed iyo dhalinta bari waddankan qaban doonta madaxweynayaasha waddanka qabta iyo madaxda waddanka qabta ma ahan kuwa ka fakara aayaha iyo dalka iyo mustaqbalka Soomaaliyeed waxay ka fakaraan ragga ay saaxiibada leeyihiin ama diasporada ay leeyihiin oo ay waddanka kala yimaadaan sida ay hoteelada iyo budgetka ay uga bixin lahaayeen waxa leedahay kuwa hadda joogana waa lamid kuwa hadda jooga ugu daran lamidka waa runtahay sababtoo waxa la isweydiinaya waxay tahay ammaanka shalay Muqdisho waxa fashiliyay oo maanta fashiliyay shalayna saa ka roonay waxa loo baahan yahay waxa waaye marka koowaad dalka markaad wax u dhiibayso waxa loo baahan yahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala diinta diblomaasiyadda uu noogu sheegay masiirkeena uu noogu sheegay waxaana lagu yiri fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun war maxaa diiday qofka waddanka wax ku bartay waddanka wax geliyay dhibka iyo qaxarka iyo rafaadka iyo qaxarka ku soo bartay inaad asaga aad uga dhigto waddanka inaad u dhiibto maxaa diiday miyaanay maanta shaqayn dhalinyarada Soomaaliyeed ee gudaha waddanka wax ku bartay intee ka shaqeeyaan adiga iyo tilmaam hal xafiis ay ka shaqeeyaan miyaanu ra'iisul wasaaraha min kun dhalinyaro ah ballan qaadan in shaqo la geeyo waqtiga miyaanu dowladda banaadir ka shaqeeyaan adaa ku weydiiyay ma haysaa haddaad hayso noo soo sheeg ma la rabo ma ogtahay in qofka laga been abuurto dawladda institutionka iyo systemka ay ku shaqeynayso waxa loo baahan yahay haddii fiiri madaxweynaha waa qurba joog wuxuu ka yimid Mareykanka ra'iisul wasaaraha waa qurba joog wuxuu ka yimid Norway ra'iisul baarlamaanka sidoo kale gudoomiyaha baarlamaanka gudoomiyaha maxaa la yiraahdaa gobolka Muqdisho sidoo kale okay wixii oo dhan hawada qaataan degmooyinkii ragga ka shaqeyn lahaa haday diaspora ka yimaadeen ayagana hal maalin kulligood la wada bedelay oo aad u jeedo qofka inuusan garanaynin magaalada iyo xaafadda iyo luqmanka uusan kala garanayn cunugan yarka ah ee dhalinyarada shabaabka la tacaamuli kara asagana garanaya shalay ay wax isla soo barteen ama seegzaaga xaafadda ku ahaya garanaya haddaad xilka u dhiibto ma awoodi waayo mana garan waayo inuu soo qabto cunuga shabaabka aqoon u leeyahay luqu galu yaqaana meeshuu fariistu yaqaana maxaa diiday marka su'aasha taala waxay tahay maxaa diiday dhalinyarada waddanka joogta in ayaga la shaqo galiyo maxaa diiday waa qodob koowaad qodobka labaad war maxaa diiday in dadka sirdoonka loo qaadanayo dhalinyarada waddanka in inta laga dhigo ayaga si gaar loo tababaro
مسؤولية الشعب كفرها واحد لوجا بحناية محاكينا إن إذا ماذا ألف جروب لا يقام أرنت أمانك وحن جعلها هنا نقول وصلات وانسجونية ونقدر ضد استاجنا أوكي وحن جعلها مركا في ريسيت كان قال لفتر كده مركا في ريسيت ولكن محمد حكده واجي وحيري وزير كجوجا محلي هذا مقدش جوجا سنترال كجوجا فدرال كا جوجا قبل كا السجا السمينة يا إن وزيرك وياهي تصالح وزيرك وحبر الشباب كان مقدش جوجا waxaa la rabaa inuu kismaayo iyo maxaa la yiraahdaa garoowe iyo baydhabo iyo inuu tago Soomaa iska badaaba taas muqdisho dhexdeeda markaad fiiriso goobaha waxbarashada ee iskuulaadka ee maxamed siyaad barre la dhisay ee waxbarashada dad private ugu shaqeystaan baa ayaga ku ganacsada wasaaradda shaqadeeda gooniyan uga soo laabano ma jeclay wasaaradaha inaan dul istaagno maxaa su'aasha ah shaqa abuurka marka loo yimaado iyadoo laga faa'iideysanayo lacagahan la helayo kala duwan Yurubna ay bixinayso bangiga adduunkana uu bixinayo qaarkoodna la leeyahay Amazon baa loogu talagalay markii aan ka soo laabano dawladda Soomaaliya dhowr jeer waxay ballan qaadeen shaqa abuur u sameynaysa dhalinyarada ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre laba munaasabad uu ka kala hadlay waqtiyo kala duwan min kun dhalinyaro uu ballan qaaday in la shaqo geliyo qaarkood gobolka Banaadir ayaa loo xil saaray hawshaas inay qabato waxna ogeynay iyagoo wajiyo kala duwan loo sameeyay dhawaan markale waa kii ku dhawaaqay doonta maxamed dhalintu dawladda kama shaqeystaan iyo qurba joogtiya wadanka la wareegtay miyay Soomaalidu noqonaysaa mar kale marmarsiyo ku aadan geedi socodkii dawladnimo ayaa lagu hormarin waayay horta taasi ma noqonayso marmarsiyo koobaad horta Soomaaliya waxa ka qaad tusaale Singapore waxa wasaaradda ka noqday ilaa Lee Kuan ninkaas wadankaas oo wuxuu qabtay waxba lahayn dagaal ka soo baxay شعب بس جوج ماشي خيرات ملح بداس كلومين سمو وحكي لما يسن باقصد ما أنت نوع حاجة ما أنت هرو حاجة أرتي باسبور كأدون كان فيزا الآن وتجايه كو حارة دود حارة بإن ليش إن هرت الشيء ثالثه مالكش أو أنت كذا سوماليا إني كو أرد معهن تشاينا أما ودون كورت معهن إن ليش يسويه ودمنا بدأ عنهن سيدا رواندا سيدا بوروندي سيدا إثيوبيا sida wadankan oo South Sudan wada u baahan yihiin Soomaa sameyn kara markaas wadamadaas la fariisanaya geeska Afrika iyo wadamadaas waxa sameynaya suuq si Afrika kuma taabaliin karto suuq sameynaya suuqaas laga shaqeysanayo lacagahooda iyo alaabtooda kala keenayo wixii banaanka imaanayo oo wadamada u socdo oo bal Soomaaliya Soomaaliyana xukuumana duty free ashurka ma qaadaya ashurta u qaataa wadankaas sabarka maxaa ka faa'iideynaa taasku waxa imaan soo dagto inuu maal gasto tagala Soomaaliya oo maamul Soomaaliya maamuleyso boqolkiiba ka Soomaaliya qaanayso kontonka ay ku qaybinaysaa ko labo waxay ku bilowjis in la wadamo tareen ka baxay Muqdisho ama Kismaayo ama ka baxayo Garowe ama ka baxayo Boosaaso ama ka baxayo Berbera waa inuu toos u tagi karo Bujumbura ama Kigali ama Juba Soomaalida ma daawanayso waxay leedahay taas waa riyo maalmeed way dhahan muuqanaysa sidoo kale Singapore markuu ninka asaasi waxa la waariyo maalmeed balba laakiin waa inuu qof ka go'an tahay inuu waxa sameeyo wadamadan baahibaayis wada u baahan khayraad bileeyahay soo saaran soo sidoo kale khayraad beesta leeyahay samayso soo marka hadii la leeshina China hal dhaho okay tagada Soomaaliya dhis boqolkiiba 70 dawladda si soddon qaado 100 sano hayso ma maleena soo shidaalka ka soo saaraysa Juba taas soo marto Muqdisho tareenkaas waxa ka shaqeynaysa qofka oday waa Soomaali ka raacay waa Soomaali cashuur Soomaali qaadanayso asimtay makaanka waa Soomaali ka shaqeyn doona meeshaas ifaan soo laakiin hadii aad fiirisid oo kaliya Kenya Ethiopia China kan qoysan waxa waa 80 milyan oo qof boqolkiiba 70 waa ilaa aqoon ma lahan kaasna ma yaqaanaan Soomaalida waxay ku xun yihiin ganacsiga way yaqaanaan laakiin ma yaqaanaan qaabka loo raaci lahaa isli aan joogno suuqa weyn Afrika iskale Soomaaliya iskale nin waxa arkaysa isli dhisaayo laakiin Soomaaliya gubaayo wada reeyay baana sababta dawladdu waxay inay fiiriso seen u maagila tagadahan seen u dhisnaa tareemo u sameynaa Soomaaliya ayaa la isku soo celiyo waay Soomaaliya soo celin karta shirkada qatar ayaa la leeshin karaa diyaaradaha siiya waxa boqolkiiba 70 qaata salaamanayso bas dawladda siiya waxay أنا ما يستوى جارده وحكاش قينيو وشقاتنا وصومالي لا يرى مفهم يعني شخصي
بايلوت ديارات أو أفريقيا laakiin aqoontaasi maanta ma leenahay shaqadii hal la abuuro dawladii dadaal ha muujiso aqoontaasi maanta dad Soomaaliyeed oo fulin kara hima jiraan aragtidaada فيري واحد بحبها commitment go'aans way buuxaan Soomaaliyeed qaban karto sameyn karto tusaale markii uu dhisay Singapore damar labaad ninka xoog wuxuu saaray dhisa guryaha dadka dhisaya lagu dhisayo waa shacabkiis loo meel qof waa bas si aad ay loo joogeen qof hala qof guri buu lahaanaya guriga lacag saab bixin adana bishi lacag la bixi guriga lahaw tareen la sameeyay ninka ka shaqeynayo oo Soomaali ama mechanic noqo ama ka wada noqo ama ka tigis jira noqo ama wuxuu noqo sababta dhalinyarada kul shaqo helaysa su'aasha waxay tahay marka mashtaalo beesha caalamka ka tahay waa maya markii deel lagu siinayo waxa rabaa deelta inaad gudi karin si khayraad kala banaysto si hantida qaranka loo dhigo hanti gaar ah ifan 100 milyan waxama 100 milyan euro ma 450 milyan bay ka qaadatay Kenya soo qaadatay Mareykanka lacag ka soo qaadatay China si u bixisa marka canshuuraha lagu daray shirkadaha lagu daray kaarka lagu daray waxaa lagu daray lacagta waa la bixinayaa Soomaaliya dib soo bixinaysa marka ila wixii lagu bixin lahaa lama hayo adiyad maxamed dooda ah ma qabtaa in dhalinta Soomaaliyeed ay ka faa'iideysan karaan shaqo abuur hab cilmiyeysan loo maray oo ku aadan in wadamada aan badda lahayn Soomaaliya ay ka faa'iideysato iyo waliba in Soomaaliya ay xiriir caalami ah samaysiyo dawladda kale ay ka shaqto si horumar loo sameeyo oo kale sida saaxiibkan buu soo hadalka waa mahadsan tahay horta waxaan rabnaa adoo waliba raacinaya xaaladda maanta lagu jiray dagaalada jira okay waxaan rabnaa anaga inaan israacino is ogeysiino Soomaaliya ani shakhsiyan fikradan aaminsanahay laba dawlad baa ka dhisan oo macnaheedu yahay shacabka dawlad gaar ah hay iyo dawlad gaar ah hay shacabka dawlad gaar ah waayo marka aad si u fiiriso ganacsigii horumarkiisa wuu socdaa hay agabkii wuu socdaa dhaqaalihii wuu socdaa haddana meeshuu ku socdo waa shakhsiyaad meeshii laga rabay inay ku socdaan dawladii central bankiga ma shaqeynayo oo maxaan u shaqeyn sababta dawladda isticmaashada waxa laga aaminsan yahay ama laga faa'iido badan yahay in la aamino oo la isticmaalo la qaato waa bangiyada private ka loo leeyahay sida Salaama banki oo kale hay okay waa shakhsiyaad bay ku dhacaysaa dawladdu kuma dhacayso dawladdu marka iyada ma abuuri karto dhaqaalihii soo gala inay iyada maareyso ama qofkii ay u sameeyso ma aha in la dhaho qofka Soomaaliga shakhsiga in ganacsigiisa la xiro ma aha kuma tilmaamayo Salaam banki albaabada loo laabo laakiin waa in la helaa system loo xiiseeyo ama la raadiyo interest laga helo oo bankiga dhex sameeynayo shaqadii ma haya waa may su'aal taagan waa labo barnaamijka kale loo baahan yahay in la sameeyo waxay tahay haddii aad tiri aqoon ma jirtaa samayn lahaa duulimaadyada hadda markii la dhaho walaalkii wuxuu soo qaatay Soomaali Ireland soo qaatay in la kaashado dawladda waaweyn oo kale shirkadahooda dawladda Soomaali way jirtaa Captain Abbas yar la dhahaa hadda bilaabay in ay xataa gobolada qaar uu u bilaabo duulimaadyo asagoo isticmaalaya shirkado private ah ragga saa diyaar u ah inay iyaga wadankoodii ku soo laabtaan aqoontoodii kula soo laabtaan diyaar u ah markii ay dawladoodii ka helaan in ay iyaga dhiirigelin ku sameynayso maxaa meesha ka soo baxay tusaalaan ku soo qaadanaya horta la wax kala saarno ninka sheegaysid waa private gaar ahaan wuxuu leeyahay asaga aniga waxa weeyaan qaran ahaan waan ka hadlaya hal abuur qaran jawaabta aan ka hadlaya in la yimaado okay jawaabta aan private kan ninkan markaas uu fiirinaya interestiga khaaska asaga u ah uu fiirinayo interestiga shacabka iyo qaranimada mida meesha taala laakiin ha moogaan waxa meesha taalo oo aad iloobaysa hadii la waayo danta guud cid qaban lahayd kama jiifanaysa danta gaar ah in adeega qabsato haddii la waayo marka dawladdu ku fikri lahayd inay danta guud qabato shacabkii ma waxay u xayirnaanayaan ma waxay leeyihiin baydhabo waxaan u aadeynaa gaari adiyad wasiirka ma baydhabo gaari u raaca jawhar ma wuxuu u raaca gaari qasab waxa imaanaya qofka investmentiga awoodii dhaqaalihii leh inuu asaga bilaabo inuu dawladii meeshii firaaqada ahayd inuu fokalka uu ka faa'iideysto asaga uu buuxiyo pointiga meesha ka banaana inuu buuxiyo ku qasbay okay marka tusaalahan kugu soo qaadanayo Ethiopia waxay tahay Ethiopia ma lahan bad annaga waxa noola saaray kaban ah Ethiopia waa cadawgeen adiyad taa markaa ka soo jeesana cadawgii cadow la'aanta markii laga soo jeesto
Kenya iyo Tanzania saaxiibo ma aha haddana interest yaa ka dhexeeya adeeg dhaqaale wadaaga okay East Africa Community miday ka yihiin sida la isku bahdilana waan garanaynaa haddana saa ay tahayna hal baasaboora ka dhexeeya okay Ethiopia ayadoon dhaqaale maanta wadankeeda badda uusan ka soo gelin hal meel bay isugu aruurisay diyaaraddeeda sida ay ka dhigato waa aragtaa qofka diyaaradda wadaya waay ajaanib miya gabadha ka shaqaynaysa cabin crewga ajaanib miya China warshadaha ay hadda ay ka sameynayso waliba xataa lacagta hadda dhaqaale darrida waxa ay ka dhacdo waxay tahay deynta badan ay qaadatay kobaha iyo warshadaha badan ay ka sameynayaan qofka ka shaqaynaya Chinese miya horta waxaan u baahannahay annaga budgetkeena inaan soo gelino oo aan ka saarno asxaabtan socota ee aan garanayn meel ay u socoto oo magac noola bedelayo shalay waxay ahayd dam jadiid ay ahayd maanta nabad iyo nolol waay beri rajo iyo rumayna imaanayso maalinta ku xigta waxa imaanay horta taa annaga in laga saaro oo waxaan u baahannahay qofka imaanaya sidoo raba ha noqdo war qabiilku raba ha sheegto war cadaalad hadaan isku xukumi weynay oo qabiil aan isku yeesnay hadaan isku gubayna annagoo islaama isma guursan hadaan isku gubayno diinta meel ay ugu taala male hadaan qabyaaladii isku reebnay haddii alla ka cabsiga aan ka fogaano kristaanadii ay nagu bateen oo Facebook iyo kaniisadaha la soo wada galayo meel maanta Soomaali caqabad ay ku leedahay sheeg haddaan wadankii dariska marka aan joogno sidii ariyo kale inta gaariyada dabada lagu xareeyo sida rabana laga yeesho وميلان شرف يا عقبات كلنا هاي كاله هذه ما أنت نوشي. وتهاي واحد ترتي إن لو قادو دبعت ماشي أي كاهي ستام. أنا كهلا راه بيجي كده حرتي السماء قردايت. هي. تصالح وطن كده في السودان. وطن يروح. دجال بكجرو. نواد ملاهم. لبيتهم مليون دت كسين. لينهن. عضايت هدسين تقبل نيمبو. سيكون عضاي إن العج إحمر كاسم يستام. أي قارئ نقطه. دولة كنا حكميان. هلا بركز حقيقيين. سويدي. دولة الصومالية وحال ربا إن الدولار قاعد قلت بنكي قد قديسة معهن إنه معناها وكنترول على الدولة القانيس بنكي قد عشان حوالي شيلن والبا وسوق لي وطنك إنه قاعد كوهايو بنكي والبا على فريانا إنه أوجد بريبورت فولا أو على عليه ساعة عدي ما أنت لدمعة إن لقى حيرو أكاونت إن لقى حيرو صار الدولة وطنك أنا دولة كينيا بنكي بدن بالله بنكي كسر الحوز بنكي الحوز جوجا بنجي لعس أبروف جراني أما أنصحنينا لما فريقه. هي. حديم ما تعرف خرب الوارق أما دم الوارق. أو بنجي ده حلو جد بيا. سكر بعكاته. لعنة في الدنك. وريق قريسة بحضر رسالة بنجي. حلال أكاونت كان كلام جوجي. على خير. أكاونت كوا حرينه. مالك خلا بحث. مالك بس ملا. سمعك أسأل وحتى بنجي ده حق الصومالية. يا كشقاية. تكشقاس أقوم أوليين. 4.5 يكوي ماذا؟ تكلاته وحب هذا الدولة. laba wadan inay ka soo qaadato Itaaliya wadanka la yiraahdo Turkiga inay ka soo qaadato dadka Italiyan dhinaca dhaqaalaha iyo bangiyada hadda waa la dhaliilaya dadka ajaanibta ee Soomaaliya la talin ahaanta uga shaqeeyay qurba joogti Soomaaliyeed baa la dhaliilaya waxa loo dhaliilaya ninka shaqada aan la siinayo waa in cadaana waxa lagu leeyahay waxa shaqada bangiga adduunka iyo IMF iyo UN bangiga adduunka IMF shaqada maxay tahay inay wadanka geliyaan deen إني كثارنا معهم نين كسر تخصصي إنه وضن دين قليو واحد جبيه حتى شخص يست واحد جبيه ساعة وضع ماذا رجال بيت كعسيين مركز أوفيرسو ووضع ماذا إسكندري فيه ديما الولها وضع ماذا نوع عصر سقط وزير دولة وزير كمالية ماليزيا هانجرت وزير كمالية سنغافورة وزير كمالية تركيا ويبقى سوق هذا لا فريسو العطا نقع تاك سيلا اي كسي حكومه طليا العقد ودينا بحسي دقالها ku baxay way hay ninka hadaan bilcad aan bixin karin way kan soo bixinaa marka way hay takalato qof la keenayo oo shaqada cad la siinay waa qof la soo magacaabo waxa lagu leeyahay ninkaas aan soo magacaabnay la tariixa ku noqonaya ninkaas shaqadaas waa nin la wato xurumadeed soo marka waxa haboon horta in la sameeyo lacag Soomaali shilin Soomaali ah lacagtaas in la dhigo bangiga dhexe wax al wixii dollar ah oo la bedelayo in laga soo qaado bangiga dhexe dowladda dollarka ay haysato
shiinaha qalada jirtaa waxay وكاد tahay على كسينة مسك هذا أنا كسينة على مسك lacagta haddii ay centralka samaysato Puntland iyo Jubbaland inay lacag gaar samaysatay rabtaa sidee iyadana loogu حقيقة لو ما هي تاسي maya way cadahayba sababtoo ah fiiri waxa lagu heshiin waayo calanka naga dhaxeeyay bay ahayd هي calankii naga dhaxeeyay waa lagu heshiin waayo boqolaal calala samaysanay ani calan ma dhihi karo calaladii markii la samaystay calaladii baa lagu qancay هي calankii waa laga tagay هي adigan ku weydiiyay suuragal ma kula tahay in maanta hadii lacag Soomaali Federal Muqdisho ay soo samayso oo dawladan hadda saa u leecleecisay shirkii amniga laga soo qayb gali waayay ma kula tahay Puntland way ku qancaysaa ama Jubbaland ku qancaysaa ama Koonfur Galbeed iyo Galmudug ku qancay Hirshabeelle lacagta federaalka ay soo samaysay ayaga inay qaataan oo ay ku wada shaqeeyaan bangiga dhaxana loo yimaado ama ka loo hogaansanaado ma kula tahay ra'yiga عبد الرحمن دقا أمانكي أي كل نولايين كل شيء وين دقالة يسمستلم كل شيء كران تصالح لعطان سمعناه ها ولدتك ما عن إلى معناها عن ودلنا قبل هذا العطان سمعناه وحسنا وشاك شخصيات كسرنا وشخصيات معمولة قبل هذا هي المدي كرتيت فكرة أوضة قدوميها أما قدومي أنا مثل ما ده رضا كل شيء جبلان كوا هيستو بدل قدوميها قرتي كاركا صابته جبلان مدحويني بدل مدحويني قاموا مدحويني صاد دودها مدحويني فدرال الصومالية ومدحويني كوكا سنة حرة إنه رجع ريد كابت هي فهمت أتو حكيين قدوميها لما تود الحين دودها مدحويني سو مركا ما ماذا أما هو يد جوكتو كسر قرضه قارت قديسه لا فكرة ما عن فكرة وتجاس هي هو اسمه جوكتو أو قارت قديسه لا فكرة ما عن فكرة وضه نقل إلى المدوبي هي مفهمت فالشخصيات كان حيل كهيستو مسكح ذولا حدات العادل مؤقليهن تمرك منهم مسعودي الشعب قال فيريا الشعب صادم لعك على سامان فكر لعك على سامان يو لفتركودا waa ayaga dadka kala laasaha iyo lacag aan la sameeyay shacabkan waxay soo may hal mid aan rabnaa inaan si khiyaaliga inaan meesha ka saarno هي shacabku waa shacabka ayaga dhaqaalaha ku bixiya maalinta kooda Galmudug ay jirto in ayaga intay dharka u soo labistaan calalka Galmudug inta qaataan iyo calalka Puntland inta qaataan أن أسودن إن أسلوبينه أو أستابها أمام القبلة ilaalino fiiri aniga astaanta qaaska ee Soomaali weyn ee aan ogolahay waa calanka buluuga ee shanta xidig wata هي waxa ka soo hara ma ogoli هي shakhsi baan ahay shakhsiyadeedana ma aha inay qof u xirxirnaato لكن أركتي الصوماليين أنا حشمينه ومد ماشي كنت تهينا okay هي laakiin qodob aan ku sheegayaa waxaan ku sheegayaa lacagaha la sameeyo markii maanta federal lacag loo sameeyo ama ayada ay sameeyso interest waxa imaanaya ah lacagta ay sameynaysid marka ani isoo gelinayso imisaad isiinaysaa su'aashaas sida ay ku cadaan ku sheegayaa هي waxa baarlamaanka Soomaaliya uu leeyahay aqalka dhexe wuxuu leeyahay xildhibaan aqalka sare wuxuu leeyahay xildhibaan aqalka sare xildhibaan kale yaa ugu badan maamul goboleedkee ugu badan وشركة كله لكن waxaa imaanaysa marka aan kala badsano dhaqaalihii aan kala badsano hadda 10 milyan waa shilin Soomaaliyeed oo wareegaya shin Soomaaliga waxaa imaanaysa isii laakiin interestiga iyo fully أنا ميسا مرك waxaa haboon in dhigista haboon in dhabood ma haboon waqti waan ku siiyaan ku dhigista marka basta hadla fadlan adana dhigisto lacagta marka la sameeyo lacagta waxa jirta laba lacag jirto tu fake ah iyo tu fake ah ama tu falsa ah iyo tu falsa ah هي lacagtan dawladda ismaaynta lacag falsa ma waa inay soo ansixiyaan aqalka sare aqalka hoose aqalka hoosena waa dad is soo doorteen dadka ku nool gobolada shaqis Soomaaliya dhammaatay فهمت waxay ansixiyeen wax soconaya way soo marka tusaale dadtan markii laga hadlayay Kenya shidaalka yaa ka dooday baarlamaanka dooday dagaal wala mar waa uu baaso maamulay shacabka ma qateen hore ma xeelayn ma ogolin soo lacagta markii la sameeyo waa wax dan oo jira ummadda Soomaaliyeed lacagtaada inta ay ka adag tahayna wadda kale haddii lacagtaada laga isticmaalayo Juba Bujumbura Afrika meel laga isticmaalayo macna maxay tahay dawlad adag baad hadda lacagta Kenya hadaan gaar Uganda maxaa u sarfaya تزادق مع الصرفية حبة ذنوي إن لا ده هلا الصومال ما صنعنا يو واي وحديد يو بقول هذا عالم بحاجة له
ciddii lacag aan lacag dowladda ahaan samayso waa criminal waa crime waa dembi qofkaas maxkamadda la saari karaa meesha loo aado waa dembitaas uu qaran galay marka dowladda kor iyo hoosba waa inay samaysaa horta lacag soomaali ah kow labo waa inay bangiga dhexe u lahaadaa awood uu xakameyn karo dollarka waddankaas soo geliyo ka baxaya maaha soo geliyo china dollar wuu galaa kama baxo haddii wax gelinaysid waxaa uganaysaa yuan lacagteeda haddii maanta aan diro $100 xagga u diro xataa la siinayaa $100 toos wuxuu gelayaa bangiga dhexe lacagtaas bangiga dhexe ku dhacayso wey lacagta marka afrikada la siinayo fahanta soo aragta toban sano kadib dollarka waxaa bedeli doona yuan waayo lacagteedii meel maris waa tahay su-aal baa meesha taagan oo dad fara badan oo isweydiinayaan wasaaradda maaliyadda soomaaliya waxay sheegtay in shuruudo badan ay buuxisay oo soomaaliya looga cafinaya qaanta ama lacagta lagu leeyahay amaahda ahayd horey u qabtay tallaabadaasi la qaaday dad fara badan oo soomaaliyeed qudhooda way isweydiinayeen shuruudaha la buuxinaya maxay yihiin soomaaliyana haddii shuruudahaasi ay buuxiso maxaa dhaqaalo kobaca u samaysmi doona arrintaas markaan cabdiraxmaan u imaado iyo wasiir beyle hadaladii oo hore u jeediyey qudhooda maxaa laga dhadhansan karo horumar noqon karo markaad eegto qaybaha qaar ee la taaban karo Soomaaliya waxay tiraahdaa gaal dilgartiisa la sii hay qaybaha qaar ee la oran karo dawladda way qabatay oo ay dadaalkeedii way muujisay waxaa kamid ah wasaaradda qaar oo hadda wasaaradda maaliyadda ay kamid tahay oo beelle u joogo sababta ay ku guuleysatana waxaa kamid ah been abuurkii wasaaradaha looga shaqeyn jiray iyo lacagtii ku bixi jirtay qofkoon aan aqoon u lahayn wasaaraddiina joogo wasaaraddiina budgetkiina uu ka baxayay haddana aysan lahayn qofkii report uu soo diyaaro wasaaradda uu keeno hay taas darteed waxaa meesha imaanaysa marka okay bangiga dhexe IMF lacagtu waxay u bixinayaan wax la yiraahdo in la sameeyo capacity injection in la sameeyo oo wasaaradihii lagu sameeyo capacity injection lagu sameeyay haddii wasaaradda shaqaalaha joogta ay ka badan tahay 300 oo qofood 300 oo qofood markii la soo shaqada markii la soo galayna markii ay joogaan 15 ruux 15 ruux joogtana qaarkood markay macawiisyo ku yimaadaan oo xataa wasaaradii aysan shaqadii sida loogu talagalay iyo jadwalkoodii structure-koodii aqoontii aysan u lahayn oo qabaa'illa ay ku yimaadaan capacity injection lacagta IMF iyo World Bank-iga ay ku soo bixisay suuragal ma kula tahay in meeshaasi ay suuragal noqoto inay report ka diyaariyaan suuragal ma marka wasiirkii iyo ku-xigeenkiisii baa waxay noqonaysaa reportkii looga baahnaa inay shaqaalaha soo diyaariyaan inuu asaga diyaariyo wasiirkii inuu noqdo sidii focal point nin NGO u ah oo meel u fadhiya laptopkiisa wata information ka xagga asaga kaga waxeeya waa tahay taas waa bedelantay oo waxaa hadda timid system ka duwan in la dhaqan geliyo qof walbaba xubintu aqoon u leeyahay inuu shaqada soo apply gareeyo wali ay raad iyo sal ay ku leedahay dhiigeen wali uusan ka bixin 4.5 wali laakiin CP inay imaado in la gudubsado in shaqadii la gudbiyo dhalinyarada muqdisho joogtay jaamacadaha ka baxay shaqooyinkaas soo macodsadaan way codsadaan laakiin badanaa dadka hela qurba joogta u badan yihiin marka adiga waxaad leedahay ilaa hadda dhalinta Afrika wax ku barata ama Soomaaliya joogtay kama faa'iideystaan horumarada dalka markii loo dirayo qofku waxa la weydiinayo waxay tahay ninka wasiirka jooga dhaqaalaha waxa uu ku dhibco waxay tahay shakhsiga Soomaaliga inuu diro fiisaha uu u dirayo wadankaasi lacag buu uga baahan yahay laakiin markuu baasaboor ajnabi wato ticket kaliya ku baxaya lacagta fiisada u badbaadaysa lacagta ticketku ku bixinaya jaaniskaas baa keentay kan ajaanibta baasaboorka wata inuu fududaado wadan kasta u dhoofa kan baasaboorka Soomaaliga watana uu cunsuri ku noqdo wadanku uu joogo maxamed markaad eegto deymaha Soomaaliya laga cafinayay shuruudaha hor yaalo wasaaraddu ay sheegteen in badan oo kamid ah la buuxiyay horta shuruudaha haddii ay hirgalaan maxaa isbedel oo iman karay horta shuruudaha waxaa kamid ah oo la fiiriyo wadanka lacag soo celin karaa diinta kamid ah su'aashu waxa waa dawladda Soomaaliya diinta la geliyo soo celin kartaa tasako labo ilaa hadda Soomaaliya waxay fahmi laayeen shaqada wasaaradda maaliyadda ee leedahay maxay tahay wasaaradda maaliyadda waxa weeye shaqada waxay tahay in ay dejiso budget ku baxay xubnaha dawladda miisaaniyadda wasaaradda ka saacadan inay dejiso ilaa sirdoonka ilaa wax bay tahay hay iyo kadibna ay sii dejiso miisaaniyadda la siin lahaa maamul goboleedyada بدنا محاش سنة العفين حمالسي جبلة محالسي قلمك محالسي بدو محالسي ضجو محالسي حياكم بعد العقد
فسكو لابو وحليه هاي صار ميزانية وإنت 700 مليون دولار حكوا بحثها يا قادني لعتنا الدين سنة إنه واحد يقوم مقطع الواحد بس إني تاي مشارة سنة يا شغالة حتى أقول له هو صومالي كل أول سادو شيء كذا وأقول له صابته لعك مركز الدين سنة يا ومركز واحد أور اللي هذا لعكتنا لسود الدين سنة محل وأور يا حبيح دبعنا مشاركة على بعين كريم أقل كسر وزارة على بعين كريم عينك على بعين كريم محسن كرتا مركز هي 100 مليون يورو maxay qaban kartaa ma mushaar bin oonaysa mise wax soo saar noqonaysa ay ardayga wax bar jaamacadda dhameeyay shaqo la'aanta ee jooga Soomaaliya muxuu yahay wasiirka hore waxbarashada run buu ka hadlay runtii waa isku nacay aan runtii noqdo oo sheega wuxuu dhahay jaamacadaha ku yaala Soomaaliya ma aqoonsan qof arkaysa afar fasal buu leeyahay jaamacad hebel يا عبري يا عبري وان جعلان الله تسناوي معنا لكن سيقود مركان ويقنو ان بوقتا iyo Soomaaliya meesha ay ka kamilado dhibaatooyinka badan ku hayeen dhinaca dhaqaalaha marka loo yimaado waxa muhiim in la isla garto isla xisaabtan bay dawladda Soomaaliya ku dhawaaqday isla xisaabtankaasi markaan eegnaano Cabdiraxmaan dib ugu noqonaya Nuur Cali in dawladda Soomaaliya isla xisaabtankii iyo sidii wasiirada loola xisaabtamayay iyo guud ahaan arrintaasi bal meel mariyay Soomaalida sama ku qaracsan tahay maanta horta su'aasha meesha taala waxay tahay ma isweydiinaa maxaan u baahanaa maxaa lagu xisaabtamaa wixii lagu dhiibay okay isla xisaabtanka waxa loo baahan yahay marka hore markuu imaanayo in la helo horta maxaa anaga budgetkeena ah maxaan qabanaa 4 sano joognaa mandate-ka aan ku shaqeyn doono muxuu yahay ma isweydiinaa hadii dawladda maanta loo yeero aniga farmaajo khayr hal su'aal baan weydiin lahaa 4 sano ee aad joogtid ma waxaad ka shaqeynaysaa inaad soo laabato mise waxaad ka shaqeynaysaa inaad mustaqbalkeena bari wax nooga tagto haday tahay marka inaad wax nooga tagto wax ka tagista aad nooga tagayso ma rabna annaga inaad ka shaqeyso doorasho qof iyo cod uma baahninba waxa u baahanahay inaad heshid aqoon udub dhexaad wanaagsan leh waxa u baahan tahay amni la isku meel maro qofka boosaaso joogo inuu caawa Muqdisho cabsi la'aan imaado waxaan u baahanahay annaga hooyada Muqdisho joogto inay hesho isbitaal ay ku dhasho waxaan u baahanahay annaga taas annaga uma baahnin doorashadan qofkii codka ah kabanada aan dhageysano waa raab ka socdo qurba joog iyo Yurub iyo reer galbeed ka socdo waxa annaga aan dhageysanayna ma aha waxa danta dalka iyo dadka uu u baahan yahay ma aha waxa loo baahan yahay waxay tahay inaan annaga marka koowaad iska dhaadhicino warkaalay Soomaaliya way burburtay meesha ay ka burburto waa halkee dhaqanka ka burburnay dhaqanka wax soo celinaya ma haysaa wasaaradda way dhisan tahay laakiin waxa ka shaqeysaa wasaaradda hidaha iyo tacliinta sare iyo dhaqanka way dhisan tahay maxay ka shaqeysaa ma ka shaqeysaa dhaqanka wacyi gelintii ma sameysaa wasaaradda waxbarashada way dhisan tahay cunuga dugsiga sare ka soo baxa fiiri tusaale cunuga dugsiga sare Soomaaliya ka soo baxa markuu ka yimaado primary uu ku noqdaa 4 sano luntay waay inuu xamaali noqday bakhaar uu ka shaqeeyo ku qasbanaanaya oo 12 kun oo shilin qaato mustaqbalkiisa aawiya ku ciyaar laakiin waa xaal dal iyo ku dhawaad 30 sano burbursanaayo dib u soo burbursanaato maxal su'aal ku weydiinaya Soomaaliland maanta burburka iyo dhibaatada iyo waxa ka jirta meesan ka jirin لكن نظام بهشي كدوان كوفة الصومالي سؤال يربان كتوسيا بودلان كما جرتمية لكن مركز وقت استقاشن سيدي دي ما لسنت اوكي محا وديدي كونفورتا كلا إنا ايغا سيستم كاسي كغا مسيران او اي دسمان waxaa u diiday waxa kamid ah cadaalad darro soo sheegay ilaa ayado maamul goboleedyadii markaan isku sheegno qofka Soomaaliga markaan dhahno qofkan waa Soomaali waxaana dhibaysa dhibaatada iyo ku imaanaya iyo dhibka ku imaanaya marka laga fakaro waa inay isku boog ku noqotaa cunuga loo yacday ilaa yaras casir ku dhashay hadduu ku kala qiimo bato waxa meeshaas imaanaysa qabyaaladii aan sheegay sax waxa loo baahan yahay marka waxay tahay loo yacday ilaa iyo raas Kamboni cunuga ku nool waa inuu helaa waxbarasho asaasi ah oo isku mid ah waa hadii la is ogol yahay haddaan la is ogoleen maamul baba asaga ha ka shaqeeyo qaabka uu ku sameyn lahaa watahay arrintan wadarada Muqdisho soo kaco horta Muqdisho waxa ku dhacay dulmi badan baa dhacay hay badan lagu laayay
حدثني وحاجره مزه يا ظاهر معلم hay حجوجا مقدشو قول لي هلو هيستا أسأقول لي هلو هيستا من أسكرية سركالة عين هيستا كويستو hay سهلة مركا أودك النوع عاسة أدر دراسة دوك الوسمية حقيقي جويا ذيك لا تمرك قول كادان هو هيستو نودا سوري arrimaha dhulka waa shaqo dheer arrimaha Soomaaliya yeelan doontaa laakiin waxaan u imaanaynaa la dagaalanka musuqmaasuqa iyo isla xisaabtanka dawladdu ay sheegtay صح sidii la rabay oo maanta loo baahnaa lagana filayay madaxda maanta taagan sanad iyo 9 bilood kadib mihirgash horta yaa la dagaalamaysaa musuqa la dagaalamaysa ay musuqa hogaamiyaha ay sameeyo qofka xirsiya waa nin wasiir ku xigeen soo xigta markaas wasaaradda aad dagaalamaysid ma ka basna Muqdisho adeegii loo dhiibay meeshii joogta ma ka qabatay Muqdisho ku baxsan tahay ha xaqiiqa santa maamul goboleedyada kale wasaaradooda waxbarashada wasaaradda ayay la wada shaqeeyeen wasaaradda maaliyadda wasaaradda waxbarashada wasaaradda arrimaha dibadda wasaaradda kulli wasaarado ama branchal ma kulli yihiin maamul goboleedyada wasaaradda matalo wada shaqeyn ay leeyihiin baa jira ta kamid ha ii sheegin maamul goboleedyada wasaaradda sameysteen dawladda waxaan ka hadlayaa wada shaqeynta waa mid isku xiran markasta idayso marka dawladda countiga ama dawladda maamul goboleedka siiyo lacagta dhaqaalaha la siiyo wasaaradda qaas ay leedahay ayada ay sameysay oo dhaqaalaha sii fulinayo hay wasaaradahaas yaa isku khadin wasaaradda dhexe dawladda dhexe laakiin markasta waxaynu aragnaa wasaaradihii waxbarashada maamul goboleedyada ee tiida xorshiraya warfaafinta iyo kuwii kaloo shiraya wasiirka warfaafinta wasiirka waxbarashada ee maamul goboleedka Jubbaland waa la wada shiraa waxaan laga shaqeeyaa dalka markaas galmudug laakiin kii dawladda dhexe aawe محمد عبد العزيز مش واحد يلا كل شيء جاي سوف كان حسابك كان لوضو وكادي حسابك كان لوضو حسابك كان لوضو حاول كسر على مرك يلا حسابك يا حديبه حقي حسابه على جالسين لعتن فراح بدن ايه صوب انك درسان او استعماله حاول كسر ماشي ايكو بعض يا سيس باشد والدنا عماتك والدنا امانك والدنا شغل عام باجرته وعلى 300 مليون بعض حيكو بعض marka xalku muxuu noqon karayaa arrimahaas dhan looga soo bixi karo aad isleedihiin maanta dhalinyarada adinkeeda la mid ee aqoon-yahanka ee waxbartay u muuqanaya laguna samata bixin kara Soomaaliya maanta ee wax ku hoga tusaaleyn kartaan muxuu noqon karayaa Cabdiraxmaan okay ana hal mid baan leeyahay siyaasiyiinta halka iga daawanaysay bulshooyinka Soomaaliyeed dhamaan ba hal mid baan leeyahay maskaxdii dalkan u soo koraysay baan nahay lacagna kuma rabno hay mansabna kuma rabno dalkeena inuu noogu badbaado bari markaan ani madaxweyne noqonayo ama wadanka markaa isku sharaxayo hay hadduu nool yahayna noloshiisu waxay noqonaysaa nolol aanan tabar lahayn farmaajo garta waa 30 sano hadda kadib markaan ani isku sharaxayo inaan madaxweyne noqdo 60 sano jirkeeda rajaynaysa waa haddii ay noqotaan ku yiri hay okay su'aasha meesha taala waxay tahay qofkii la rabay maanta talada in laga dhageysto waa aniga taladan ku siinayna mudane waxna kaaga ma rabno sharafna kaaga ma rabno masabna kaaga ma rabno dalkeena inuu noogu badbaadaan rabno hadduna maqlayo waxaan ka codsanaynaa marka dhalinyaradayna inuu na dhageysto fariinta halkan ugu diraya inuu na dhageysto naga qaato inaan la talino talo ugu sheegno una dirno fahamsiino waxaan u baahanahay marka ku sheegaya oo dalkan ku badbaadayo hay dalkan waxa uu ku badbaadayo waa 3 shay in la raadiyo waa in la raadiyo dhaqaale aad isu jeclaysiin karto dadkan kala go'go'ay waayo dhaqaalahaas intuu ka imaanaya ma aha inaan is weydiiyo $150,000 baa waxaa la siiyaa maamul goboleedka budgetkooda waay budgetka lagu bixiyana madaxweynaha la siiyaa cabsi looga baqayo inuu asaga mucaarado dawladda loo siiyaa xaqiiqdeeda ma hayno looma siiyo xataa in xildhibaanadiisa iyo wasiiradiisa la soo doortay in la siiyo ma kulli Soomaaliya xaqiiqda inaan iska inda daboolna ma wasiir waxaad arkaysaa Hirshabeelle ka socda ama Galmudug ka socda oo isla iska lugeenayo taytal xumada meesha ka imaanaysa oo miyaa lagu ilaalin lahaa
وحداد مقع وزير يلطو وحاد كم مضنتهي منصب كده إيه شرف كده إن أدليها وزير كي ماذا جارس يا ودير يا مندرة كي ماذا يكون كي ماذا كان محوها كجدوبة بيلو يعني يروح هذا إذا عدوا إلى الله ويجوا الله هن لكن اسكو قيمة ما اسكو بحر كنا ما مركب لوين تحوينا كدقين مايا إن اسكو سوقنا ما نين ماشان فردي قدر القحوة الله فردي أنا عمل هين وزيرنا وزير كابوك يا جارس مكوك أنا مخاض كلام شامل عبيسة مكوك يعني مكوك أنا مخاض كلام وزير ونطبين بقى يا وزير جارس مكوك أنا جارس مكوك أنا وزير ونطبين بقى حتىهن وزير لوين يتسكين علي بلو سوق وكا جعلنا دم علي عبد الرحمن اوكي واي سيده سيستم كصح انا ربنا ان اسكو شيغنا انا مره با ان قفحه حاجه مربو شخصي ان مغعابو او ان مeel kaga dhaco marabo laakiin xaqiiqada isku sheegin waxay tahay magaca inaan tayada laga qaadin waa qofku waxa uu yahay inuu u muuqdo haduusan ahayna inuu xilka qaban uusan ku ciidoobin hadad wasiir tahay ilaahay wasiir ka dhigo waxa loo baahan yahay xaaneedka iyo sharafteeda inay ka muuqato structure-ka inaad bulshada ka dhaxbaxdo guri qurux badan aad digto Soomaa ma aha maxaad qaadato shax ka cabtid bulshada ka fogaatid hadalka qayban nooc waa u dhigi karnaa systemka sheega waxay tahay bulshadii soo dhaxgal laakiin waxa soo dhaxgalaysa adoo xaalkooda ogaanaya adoo wareysanaya meelahay daciifka yihiin adigoo ka kabi kara ra'yiga adoo ka qaadan kara waxa aad rabtay inaad ka shaqeyso adoo ka dhageysan kara laakiin haddaad u imaado anigaan Cabdiraxmaan haddaad ila fadhiisato labadeena waxba kala sareyn shaqo aad aadii xafiis aad aadan lahayn مسؤولية أمضى أو قضية ما قاعد هيستي بيزنس كاركار قاعد تمكوي. مركو حلا تاسوين حل وحلو مسؤولك وقرن كرا شقدي وقبلها سجل. شقده وقبلها وإنه قرن كرا حتى وإنه بوق وتا وأفتقاد كرا. حد شقده وغير هذا هي. لكن هنا قدر المال كله سوف يستطيع أظن الشقة هي تاج وزير نمو ما قرن كرا. كقدو. ما أنت ميجي تعرف تاس. ويبوح ذا. كقدو هاي. قدر كأن ربنا وحي تعمل. سدح شيء إن سيسح الله وشقيه. وإن لقى شقية لعكتن لقوا بحين يبجتك إن أي نقطة ربيتان صح أو أي ولا لهين أيجي يكون يدوبان حديث صورة قل نقول كريم إن لقوا فكروا سيستم في صورة قل لقى دي لها وكو تنلبات دت كمركي أي بربر سيدا نقول كده واحد لقى دي سوا أقونت هنقطة أقون حرفة ديسن جعنا هنقطة أقون وحبرشة مادية أما مدرسة هذا السكوب وقت بعد ما هيدا أقونتي حقيقة وكل منا يوانا كل يدنا وحبرشة ده حقيقي ربيتان كشعب كأي ضمير كصومالية دوا إلا سعودية ضمير كصومالية بعد انتي قف والبو صومالي جوجا ما انتي مقدشو حالية 6 مليون كنول 6 مليون كنول حدي أفتل لقى قاضي 6 مليون وحج علىنا يعني باسبور كصومالية إني كود التجان أو أي قاتان باسبور أجنبي ما هي نتعلم وحكوا قصبينا وحوايه warbaahinta arintaas ma hayso waa loo baahan yahay wana warbaahinta laftirkooda markaan xaqiiqdo isku sheegno ayagu waxay u hanqal taagaan si ay warbaahin international u noqdaan oo ay laftirkooda ku dhufaan baasaboorada ajnabiga laakiin ayagu laftirkooda uma suura gelin لكن حقيقة إلى مسكين حديان كهلا غير عند ما يستكذب وان كاغا بحيا marka waxaan rabaa warbaahinta inay ay laftirkooda waa dadka ka shaqeeya burburka Soomaaliya waxaan u sheegayaa waan kamid ah warbaahinta waxaan rabaa inaan mida fariinta idinka laftirkiina ay qaadataan taasoo ah inaan annaga ka shaqeeyno kaabaha dhaqaale iyo dhismaha wadanka qaabka lagu qaban lahaa wacyigelintii looga shaqeeyo hadaan ka hadlo soo koobay waqti aad loo heedartay tusaale hadda aan u laaban wadanka Burkina Faso waxaa la jiray Aba Volta wadan duusan buu ahaa bahay miran buu ahaa waxaa madaxa ka haystay France taga yiraahdo Francisca wiil yar oo Thomas Sankara baa qabsaday wadankaas wuxuu jiray 3 sano jaxas jiray وعطنا ترى وانكاس وحب اللعبي إنه ودن كنقالس كحيو لنا عبيرها ودولين كإترينا سوماليا وحب بعض الأنيارو قضياشن أرديان الحلق أرديان مركو على ذا الأنيارو وقت هالسيو هالسيا معهم هذه وقت هالسيو وآخرت إنا راس نوي إنا جرس تجنوي إنا فقط نوي قضياشن كراس أدوات محسنة محمد عبد الرزاق عبد الله يولي عبد الرحمن نور علي وقت كان مسيساني سيد البرامج كوكب قاتل أدبنا ديك المحط عليه أكيد أنا لا صعدت جودة هام بين تاسيا كسو جبينة يا فندق ما أنت برنامج كا
gorfeynta oo RTN idinkaga imaanaya waxaa idiin sheegay anigoo Cabdilcasiis Barrowa waxaan igala qayb qaatay Cabdiraxmaan Nuur Cali oo loo yaqaan si naxariis leh oo qoraa arrimaha siyaasadana falanqeeya iyo Maxamed Cabdirasaaq Cabdullaahi oo bartay xiriirka caalamiga ah iyo waliba diblomaasiyadda barnaamijka iyo guud ahaanba martii inoogu ahayeen Maslax Abubakar ayaa soo saaray oo farsameynaya barnaamijka dhinaca maqduumidana waxa uu ahaa saaxiibkeen Paul ana Cabdilcasiisna waan idiin sheegay tan iyo kulantii dambe isbuucan mid ka xiga waxaan idin leenahay nabadgelyo